tuulada Dhankabuuri waxa ku taalay wada cidla ah oo dadka oo dhan ay ka baqi jireen markay qoraxdu dhacdo kadib qofna halkaas agma dhigi jirin dadka tuulada waxay sheegi jireen in habeenkii ay wadadaas ay ka soo muuqato haweeney iibisa biize aad u macaan laakiin qofkii ka iibsada mar dambe lama arki jirin yacni qofkaas waaba la weyn jiray ama haddii lacala la arko wuxuu noqon jiray qof waalan oo wejigiisa ay cabsi ka buuxdo balse odayga tuulada Raaju Kaka mar walba wuxuu dadka uga digi jiray inay cuntadaas cunaan wuxuu dhihi jiray habeenkii 9 saac kadib ha marina wadadaas halkaas waxa degan sixiroole iibisa biisa sixir leh laakiin dhalinyarada tuulada ma aysan rumaysan jirin sheekooyinka odayga mar ay habeen ahayd nin la oran jiray Sheem ayaa aad u sakhraansanaa isagoo heesiya ayuu wadada ku soo dhacay la amalu dhahay wuxuu isagoo dhacaya ku dhac jidkii laga mamnuucay dadka tuulada si lama filaan ayuu istaagay hortiisa waxa yiilay gaari yar oo alwaax ka samaysan qiiq kulul iyo urmacaan ayaa ka soo baxayay cod dumar ah ayaa ka soo yeeray mugdiga kaalay biizzada cun shay markuu eegay wuxuu arkay haweeney aad u qurux badan waxay wadatay digsiyo kulul oo ay biisi iyo cuntooyin macaan ay ku shiilaysay indhaheedu waxay ahaayeen kuwo madow oo aan caadi ahayn waxay si tartiib ah ugu dhiibtay biisa kulul Sheem isagoo sakhraansan ayuu qaniinay cunnadii laakiin isla markiiba baastooyinkii gudaha ku jiray waxay bilaabeen inay si wax nool ay u dhaqdhaqaaqaan waxay ka soo baxeen rootiga sidii dixirin nool wuxuu dhahay maxaa dhacay Sheem gadaal ayuu u booday sixirooleydii ayaa qosol qosashay warkaalay siicun ayay dhahaysay Sheem ayaa inuu saas u eega yiri waxani waa wax laga yaqsiido ish bas markuu saas yiri isla markiiba haweeneydii wajigeedu wuu isbedelay timaheedu waa ay dhaadheeraadeen indhaheedii waxay noqdeen casaan ololaya afkeeda waxa ka soo baxay ilka dhaadheer waxay dhahaysay muxuu yiri biisahaaga ayaa xun ah codkeedu wuxuu noqday qaylo argagax leh Sheem casi darteed ayuu la gariiray ka hor inta uusan cararin sixirooleydii ayaa qoorta ka qabatay waxayna si toos ah ugu tuurtay digsiga taas saliideeda ay karkaraysay war hayaay bal maxaa soo socda wuxuu qayliyay intuu qaylin karo laakiin nasiib darro cidna ma aysan maqal daqiiqado kadib wax walba hal mar ayay aamuseen toddobaadyo ayaa ka soo wareegtay maalin kale laba wiil oo la kala oran jiray Guduu iyo Bitu ayaa ka hadlayay wadadaas wax ku saabsan Guduu ayaa yiri caawa aan aadno meeshaas waxaan maqlay inay samayso biisa aad u macaan Bitu wajigiisa waxa laga arkay inuu ka cabsanayo meeshaas wuxuu dhahay muwaalantahay oday Raaju Kaka wuxuu nooga digay halkaas laakiin Guduu wuu qoslay wuxuu dhahay waa sheekooyin uu sheegay oday waalan habeenkii 9 saac markay gaadhay labadoodii waxay gaareen wadadii habaarnayd habeenkii kaliya waxa la maqli jiray qaylada eeyaha iyo dabayl qabow wax walba waxay ahaayeen cabsi markay bartamaha waxay ogaadeen in hooskoodii uu dhulka ku lumay Bitu ayaa gariiray wuxuu yiri Guduu hooskeeni ma muuqdaan isla markiiba cod dumar ayaa gadaashooda ka soo yeeray kaalay carruur biisa kulul qaata markay jeesteen waxay arkeen gaari alwaax duug ah ka samaysan dushiisana waxaa fadhiday isla haweeneydii timaheedu waxay qarinayeen wajigeeda kadib si tartiib ah ayay madaxa kor ugu qaaday waxayna bilowday qosol cabsi ah amal Bitu dib ayuu u gurtay wuxuu dhahay ila soco aan baxsanno laakiin Guduu ayaa baahi darteed damac ka galay inuu cuno cuntadaas aadka u macaan ee sixiroolayda wuxuu u dhawaaday gaarigii hal biisa isi ayuu yiri sixiroolayda ayaa si hoos u qosashay waxay tiri lacag uma baahni hal balan oo kaliya ayaan rabaa Guduu ayaa yiri waa maxay markaas ayay si tartiib ah u tiri markaan kuu yeero waad ii imaan doontaa Guduu isagoo qoslay ayuu yiri haye waan imaanayaa sixiroolayda ayaa gacantiisa saartay biisa kulul Guduu wuu qaniinay kaliya hal mar indhihiisu waa ay kala baxeen waxayna soo xasuusisay sheeko kale oo tuulo kale ay ku soo samaysay waatanse sheekadii ay sheegaysay dalhidii hore waxa ku taalay wadooyin ciriiri ah oo habeenkii noqda meel aamusan oo cabsi ah suuqa Milana Bazaar dhaxdiisa waxa jirtay qayb mugdi ah oo habeenka saqda dhexe uu ka soo muuqan jiray gaari yar oo lagu iibin jiray jabaati dadku waxay ugu yeeri jireen gaariga jabaatiga macaana waxa la sheegaa qofkii hal mar cunaa jabaatigaas inuusan weligiis dhadhankiisa iloobi doonin ama inuusan mar dambe dunida ku soo laaban doonin cuntada waa ay macaan tahay laakiin maalinkaas ayaa adduunka kugu dambaysa Rahul iyo saaxiibkiis Aryan waxay ahaayeen arday wax ka barata jaamacadda lagu magacaabo University of Delhi habeenada kamid ah ayay socod ku marayeen Milana Bazaar Aryan ayaa si hoos u yiri waxaan maqlay in meeshan ay joogto haweeney iibisa jabaati aad u macaan oo habaaran Rahul ayaa qoslay wuxuu dhahay filimada cabsida badan ayaa daawataa miyaa laakiin markay geeska madow ay xaafadda gaareen waxay arkeen
iftiin guduudan oo meel fog ka soo baxaya. Gaari yar ayaa taagnaa, gadaashiisana waxaa fadhiday haweeney dheer oo wejigeeda indhashareer ku qarinaysay. Waxay si tartiib ah u tiri, kaalaya jabaatiga cuna, hal mar oo keliya ayaad dhadhamin doontaan, laakiin weligiin waad xasuunaan doontaan. Aryan ayaa cabsi dareemay, wuxuu dhahay, Rahul wejigeeda lama arko. Laakiin Rahul ayaa yidhi, 2 jabaati noo samee. Haweeneydii ayaa weydiisay, mid laf leh mise mid maskax lagu kariyey? Rahul ayaa qoslay, wuxuu dhahay, kan lafaha lagu kariyey, isagoo yaaban. Waxay siisay 2 jabaati oo aad u kulul. Urkoodu wuxuu ahaa mid aad u macaan. Markay qaniineen isla markiiba indhahoodu waa ay madoobaadeen. Markay soo tooseen waxay arkeen iyagoo jooga tuulo ceryaamo qarisay. Hawada waxaa ka soo urayay ur dhiig iyo hilib gubanaya. Aryan isagoo argagaxsan ayuu yidhi, tani magaaladii aan joognay ma ahan. Markaas ayay arkeen haweeney duq ah oo wejigeeda murugo iyo cabsi ka muuqato. Idinku waad ku dhacdeen dabinkeedii, waxaad cunteen jabaatigii siciroleydaas. Hadda dib uguma laaban kartaan magaaladiinnii. Rahul ayaa weydiiyey, waa tuma? Ayeedii ayaa si gariirla u tiri, Zubayda. Waagii hore waxay ahayd boqoradii tuuladan, laakiin waxay dishay dad badan. Hilibkooda waxay ka samayn jirtay jabaati. Iminkan habeen kasta waxay ugaarsataa dad cusub. Habeen dambe Rahul iyo Aryan si qarsoodi ayay u gaareen gaarigeeda. Gadaashiisa waxay ka heleen alaab hoos oo dhulka laga galo. Markay gudaha u degeen waxay arkeen qol dhiig ka buuxo, lafa dad, madaxyo qalalay iyo hilib cusub oo saaran biraha. Aryan matag ayaa qabtay. Ayeedii ayaa markaas u sheegtay, Zubayda lama dili karo, waxaa jibin karo oo keliya qof dhiiggeeda wata oo cuna hilibkeeda kadibna dila. Waxay ogaadeen in wiil lagu magacaabo Shamsheer uu ahaa wiilkeeda oo markasta isqarin jiray. Wuxuu ku noolaa tuulada isagoo dadka ka dhuumanaya. Rahul iyo Aryan ayaa u tegey, adiga ayaa naga badbaadin kara ayay ku yiraahdeen. Shamsheer wejigiisa murugo ayaa laga dareemay, wuxuu dhahay, waa nacbay hooyaday, laakiin hilib ma cuno aniga, waxaa noqday dadka cuna keliya khudaarta. Rahul ayaa yidhi, laakiin dhiiggaaga oo keliya ayaa habaarka jibin kara. Muddo dheer kadib Shamsheer wuu aqbalay, haddii tani ay dadka badbaadinayso waa markii ugu dambaysay aan hilib cuno ayuu yidhi. Habeenkaas Zubayda ayaa mar kale diyaarinaysay jabaati aad u macaan. Shamsheer ayaa qaniinay hal mar, kadibna si lama filaan ayuu hortooda uguma tagay. Wuxuu dhahay, hilibkaaga waa sun hooyo, cunista dadka nool kaama dhigayso qof weligiis noolaanaya, keliya waxay kaa dhigaysaa qof habaaran. Zubayda qayle argagaxle ayay qaylisay, jirkeedu wuxuu bilaabay inuu gubto, maqaarkeedu wuxuu isku bedelay dambas. Daqiiqado kadib waxay noqotay boor hawada ku baaba'ay. Rahul iyo Aryan markii ay miyirsadeen waxay mar kale joogeen Milana Bazaar. Saacaddu waxay ahayd 3 habeennimo. Gaarigii meesha ma oolin. Aryan ayaa yidhi, wax walba mariya ayay ahaayeen. Rahul si tartiib ayuu jeebkiisa uga soo saaray ilig qof bini'aadam oo dhiig leh. Wuxuu dhahay, riyo ma aysan ahayn ee dhab ayay ahayd. Sanad kadib dadku waxay joojiyeen inay habeenkii xilli dambe socdaan tuulada Milana Bazaar. Laakiin wiil cusub oo lagu magacaabo Caadil oo shaqo uga yimid Delhi ayaa habeen lumay. Gaajo daran ayaa haysay. Markaas ayuu arkay gaari kale oo iftiinkiisu uu guduudnaa, waxaana ka soo baxaya isla urkii hilibka oo kale iyo haweeney kale oo indhashareer madow xiran. Boorka korkiisa waxaa ku qornaa hilibka idaha oo laga sameeyey biiza aad u macaan. Caadil ayaa qoslay, wuxuu dhahay, waa magac la yaab leh. Haweeneydii cod sare ayay ku tiri, maxaad rabtaa wiilkaygiyow, kan lafaha leh mise kan maskaxda lagu kariyey? Caadil ayaa yidhi, kan maskaxda lagu kariyey. Markii uu qaniinay qaniiniyadii ugu horreysay, dunida ayaa la wareegtay, isla markiiba mugdiga ayaa liqay. Markuu indhaha kala qaaday wuxuu joogay tuulo kale oo ka sii cabsi badan tii hore. Wadooyinka waxaa ka buuxay dhiig, darbiyada waxaa ka laalaaday hilib dad, madaxyo qalalan ayaa saqafka saarsaarnaa. Kadibna tuuladan sheeko kale oo cabsi ah ayaa ka jirtay.